nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan baad dhabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan baad dhabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland adaa helano haliya taniyo hormuuda adaa hawlka roo haldoona taniyo horseeda ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo bishii 1 tahay June inaan iska diiwaan geliyay magaalada Qardho xaafadda Kambo oo hadda aan deganahay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in riyadaas dadka reer Puntland muddada dheer ay ku taamayeen inay rumowday waxaan kaloo ku faraxsanahay muddadii hadda ay socotay diiwaangelinta magaalooyinka Eyl Ufayn iyo Qardho inay si habsamiyo u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday dadka miyiga iyo magaaladu inay isku mid ah ay isu diiwaan gelinayaan u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan runtii arintaasi waa yidiilo iyo farxad runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dawliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ay magacaawnayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland ku faani karto Soomaalina ku faani karto waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo degan oo xasilan oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwo dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaas ay qabsoomi karto anigana waxaan ku faraxsanahay inaan saak iska diiwaan geliyay magaalada Qardho waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeeda oo dhan iyagana marka ay arinta saddexdan degmo ay dhamaato in iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo waa guul weyn oo aan rajaynayno in ay arintaasi ay u noqoto bulshada Soomaaliyeed tallaabo dhinaca doorashooyinka hore loogu qaadi karo oo looga bixi karo arrimaha marar badan dadka Soomaaliyeed dhagahooda ku soo dhacaan oo ah habka doorashooyinka loo galayo muranada ka dhashay waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afjarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono awoodooda doorashada inay iyagu yeeshaan waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horeyso magaaladan Qardho inay si habsami leh isaga diiwaan galiyeen
dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona arrimahaas runtii waa guul Soomaaliyeed u soo hayeystay waa guul runtii u horseedi karta nidaamka qabyada ka ah ee dastuurka Soomaaliyeed iyo habka doorashada dalka inay wax ka tari doonto oo tusaale fiican u noqon doonto aad baad u mahadsantihiin intii ka qayb qaadatay guddi doorasho iyo qaybaha kala duwan ee dawladda ay ugu horeeyaan ciidamada ammaanka sugayay sidoo kale nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanadaas ay doorashada ka dhacayso oo gacan weyn ka geystay xaqiijinta dadka deegaanka haddii meelaha qaybkood uu muran ka yimaado iyo dadka soo barakacay muddooyinkii loo baahnaa inay dhulka deganaayeen intaasoo dhanba waxay noqonaysaa iyagana waa uga mahadcelinayaa iyo saxaafadda oo runtii si joogtaa u tabinaysay howlahan baaxadda leh ee socotay ee Soomaaliya oo dhan u ah tusaale lagu dayan karo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum